Vessel Monitoring System waa qalab lagula socdo dhaqdhaqaaqa doomaha kalluumaysiga si looga hortago maraakiibta iyo doomaha sharci darrada. Wasaaradda Kalluumaysiga waxay keentay qalabkan oo hadda yaal xarunta wasaaradda oo ay ku shaqeeyaan shaqaale loo soo tababaray. Doomaha iyo maraakiibta waa ku qasab inay isticmaalaan si ay u dhowraan sharciyada caalamiga ah iyo badqabkooda si loola socdo halka ay marayaan. Wasaaradda Kalluumaysiga waxay bixisay shatiyo kalluumaysi. Shatiyada waxaa la siiyay iskaashatooyin u dhashay dalka China oo loo yaqaan COVA. qiimaha shatiyada wadamada deriska ah ay ku bixiyeen iyo Soomaaliya ayaa isku mid ah intooda badan. Tusaale, Kenya sanadkii waxa ay ka qaadaan dooni kasta 30,000, Tanzania 32,000, Seychelles 35,000, halka Soomaaliya ay doon kasta ka qaado sanadkii 35,000. Iskaashatooyinkaas oo wata 31 markab waxay ruqsad u haystaan inay ka kalluumaystaan meel ka baxsan xeebta Soomaaliya 24 nautical mile oo ah badweyn sare. Waxaa sidaas loo sameeyay si loo ilaaliyo kalluumaysatada wadaniga ah oo aan halkaas gaari karin. Maraakiibtan ayaa wasaaraddu siisay shatiyada waxaa loo yaqaanaa lonelineers, kuwaas oo aan gaari karin gunta hoose ee badda. Lonelineers kama gaaraan gunta hoose ee biyaha oo awood uma lahan xaalufin maadaama ay ka kalluumaysanayaan meel fig sare ah. Dhinaca kale, sharciga Soomaaliya u yaal hadda ma ogola in ruqsad la siiyo maraakiibta loo yaqaano trawlers ee awoodda u leh inay xaalufin sameeyaan. Shatiyada la bixiyay waxay ku kooban yihiin oo kaliya kalluunka noociisu yahay tuna fish waa mid gurguura oo aan hal deegaan saldhigan. maraakiibta ay Soomaaliya siisay shatiyada waxa ay sidoo kale ka haystaan shatiyo dhammaan wadamada ay badda Indian Ocean marto sida Kenya, Tanzania, Mozambique, Madagascar, Comoros iyo Seychelles. maraakiibtaas waxay la gurguuraan tuna fish oo ay ka qabsadaan marba meesha uu aado iyagoo ka haysta shatiyo dhammaan wadamada Indian Ocean. waxaa maamusha hay'ad gaar ah oo loo yaqaan Indian Ocean Tuna Commission. hay'adan ayaa Soomaaliya ka caawisa hubinta maraakiibta si loo ogaado inay hore dambiyo u galeen iyo in kale. hay'addu waxay leedahay blacklist. shatiyada ay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka bixisay waxay ka mid yihiin shuruudaha deyn cafinta ee ay dawladdu ku xireen Bangiga Adduunka iyo Midowga Yurub. shuruudaha deyn cafinta waxaa ka mid ah in dalku uu soo saaro dakhliga gudaha. taasi iyadoo laga duulayo xukuumadda waxay wasaaradda fartay in isha dhaqaale ee kheyraadka badda laga faa'iideysto, sidoo kalena horumar lagu sameeyo waaxda kalluunka iyo kheyraadka badda. shatiyada waxay wasaaraddu u bixisay si ay u furto waddo sharci ah oo ay qaadi karaan maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysta Soomaaliya. waxaa xusid mudan in hore loo bixin jiray shatiyada heer dawlad federaal iyo dawlad goboleed, balse aan la wadaagi jirin bulshada, halka lacagta laga helana aan lagu shubi jirin bangiga dhexe. wasaaradda kalluumaysiga ka hor inta aysan bixin shatiyada waxay kulamo muddo socday la yeelatay wasaaradaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyagoo ka heshiiyey sida loo kala leeyahay shaqada. tusaale, dawladda dhexe iyada awoodda u leh bixinta shatiyo la siiyo shirkadaha ajaanibta ah wixii ka baxsan biyaha Soomaaliya 24 nautical mile, halka dawlad goboleedyada ay awood u leeyihiin bixinta wixii ka hooseeya